بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قاعدة جنك كحرم ويبقى جوكتي وأدي سلامة. أولاشين سعدي عبد الله جان كدامة سعدوش كوكن جنا وهنا ذات قصب تيسور دبو سبسكرايب تابعكم بركركمه لايك شير كومنت كلابين إن شاء الله أصحابي حرب قضينا قصو طورو إن وهرن هيدي كان هذا قصو سارنينا بيه سوي كركرين marka hilibka rabaa inaan maraq ka soo bixiyo oon soo jilciyo haduu ilaahay idmo marka nala socda hilibka waa dhaqi doonaa qalan ku dhaqaa kabihiisna waa diyaar wax kale kuma sameyn doono cusbo iyo filfil waxaan ku darayaa basal hilibka markuu noo soo karo maraqa ka soo qaataa ku soo laabanaya haduu ilaahay idmo insha Allah. أصحابي هادو waxaa dabka soo saaray basbaas shidna qumba sameynaya yaanya soo shiiday iyo basal iyo toon kadib waan dalacay xabad shishiida ku daray shidna qumba laga soo tuuraa haduu ilaahay idmo marka waxaan sugaynaa ilaa iyo xoogaa oo nooga soo karkaro midabka uu soo bedelmo waa kan asxaab oo ku soo laabanay hadda waxaan ku daray raqay ku daray gaduud zaid ma rabo waxaa rabaa normal inuu ahaado yaanyada marka hore aan ku daray ma ahayn gaduud zaid waxay ahayd yaanyo xoogaa ciriin hal xabo shishiida ku daray iyo raqaygii waxaan ku daray markaa cusbe iyo gabar maraq digaag kadib waxaan ku daraynaa qumbo shidna qumbo qofkii cunaa bisa ka sheekeyn kara aad u macaan badan yahay ما شاء الله أصحابي صانو ديار نووي هاي وحير وحن سوها إلا إبيها ونوصو قرصده كدب ما كدمينينا سليد بدن ملهن بسباس كما كبادينين ما شاء الله صانو ديار كوي هاي إن شاء الله أصحابي عادو حان دبك سو ساري ديكسي waxaan rabaa hilibka inaan ku shiilo hilibka si fiican igu soo kareen maraqana waa ka soo reebay kaad insha Allah waa dhanaan iyo waxaan ku dareynaa waa shiileena hilibka si fiican u karay ma kala daadaadanin tartiib aan u soo baxsanaynaa أنا أصحابي waxaa ku soo daray galaas biyo galaaskaas biyaha rabaa inaan ku sameeyo marka waxaan soo diyaarsaday baharaadkii aan ugu talagalay inaan ku carfiyo waa xawaashi aan isku soo dardaray iyo maraq digaag waxaan kaloo ku darayaa wax yar oo saliid saliida ma ka badinayno wax yar leeg aan ku daraynaa
waa hilibka asaga waxaan ku dhahay soo kaliya intaas ka badan ma rabno. kadib si fiican isku gidgidinaynaa. asxaabiga qaadada waa ka dhaafaynaa. waxaan rabaa inaan gidgidiyo. waxaan ku soo darayaa basal, hal xabo basal aan ku jarjaraynaa. maasha hilib caraf badan laga rabaa. xogaa hadda dhacaankii oo dhan wuu soo guursaday maaha. marka hilibka inuu jajabo laga yaabaa marka qaandada ka daa. mar walba gidgidi. waa hilibka aad u bisil yahay, qaadada ma xamili karo. waa ujeedin lafta iyo hilibka si u kala hareen. wixii dhan qoyaankii aan ugu talagalayna wuu guursaday. insha Allah asxaabi wax kale noo dhiman malahan. hilibka saan uu noogu diyaarsan yahay. hadda waxaan bilaabayaa inaan dalaco bariiskeena. asxaabi dabka waxaa ii saaran saliid iyo basal sa ujeediin iyo qorfo. saliid iyo basal iyo qorfo waaye iyo dhagayare, laba xabo dhagayare ku jirto. marka waxaan ku darayaa baasto. waxaan rabaa baasto inaan ku jijibiyo. baastada hadhow kalar qurux badan ay noqonaysaa oo bariiska ka soo dhex muuqanayo. marka intaana rabaa si fiican inaan u soo shiilo. baastadan midabkeeda inay bedelmataa la rabaa oo brown ay noqoto. marka waan sugaynaa cabaaraan dabooli doonaa. marka uu soo guduuto waan ku soo laabanayaa. waa kan asxaabi waa ku soo laabtay. hadda waxaan ku darayaa kabsar iyo toon. waa ujeedin baastada si u qurux badnaatay. maasha Allah waaye. haddana waxaan ku darayaa bariis. bariiska wuu iqasnaa. ugu horreyn waa dhaqay kadib biyo yar oo qandac la dhigay ilaa iyo 35 daqiiqo kale. maasha Allah bariiska biyaha qandac la dhigaayo aad u macaan badan yahay. mar walba is dhex gelinaynaa. bariiska taqriiban waa adiga 1 kiilo kale. si fiican aan rabaa inaan isku dhex geliyo. baastada mar waliba saan ugu soo dhex muuqanaysaa markay karto. saanay ahaanaysaa. bariiska iyo decoration oo tahay. marka insha Allah asxaabi waxaan ku darayaa xawaash. xawaashka gasac ay ku jiro waa mid aniga isku tartaray. wax waliba waa u isticmaalaa. waxaan ku daray xoogaa yar oo heel ah. waxaan ku darayaa maraq digaag. mar walba wax ku darteedna qaandada mari. maraqiisana dabku ii saaran yahay. hilibkan ka reebay.
insha Allah asxaabay waxaan sugayaa ilaa uu nooga soo karo kadib aan kusoo laabanaynaa. asxaabay bariisku waa noo soo karay, xogaa yaraan soo huuriyey, waxaa ka muuqda waa sabiib. insha Allah saxanka ku diyaarsanaynaa. hilibkina waa kana, waxaan ku leeyahay maasha Allah lagama sheekeyn karo, macaan caraf qada dhameystiran waaye. maasha Allah qofkaan haysanin Ilaahay ha siiyo, cidda haysatana Allah u siyaadiyo. mar walba waxaa fiican waxa marka aatid maasha Allah inaad dhahdid oo qofka walaalka u duceysid, nafsadaadana aad u duceysid. asxaabi waxaa kaloo jiray caluuley aan si gooni ah u soo kariyey, yani ma idinla wadaagin, ayadana gooni u karaysay waan soo diyaariyey. maasha Allah ayadana waxaan ku dhahay lagama sheekeyn karo. waa kana bariiskii iyo hilibkii saanu diyaar ku yahay isaga. caluuleydan waxaan soo saari doonaa saxan gooni ah. waa kana iidan caloosha si fiican u soo kariyey. aniga ma jecli caloosha la duuduubaayo, qof walba si uu jecel yahay ma caloosha. aniga ma jecli caloosha, inaan waxaan jeclahay yani saan aan u kariyo. mindhiciraha anaa dabay, mar walba aniga oo mindhicira aan arko waxaan jeclahay markaan dhaqo kadib inaan dabo. marka insha Allah asxaabay qadadeen maanta aanay dhan tahay. fi amaanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.